الله أديك آمنا يو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تبارك وتعالى هديو ربينمو درسينا وحو كمدياي وأنه ما تقاضنينو سلسلة قصص الأنبياء. قصة آدم عليه السلام أينو ضميني أو قصة شاكيني، وحنو كشاكينينا مركا أنت قصة إدريس عليه السلام. iyo waxa weeye taariikhdiisii iyo waqtigu ahaa iyo culimadu waxay ka yiraahdeen Idris calayhi salaam. ilaahi subhanahu qaadirka ahaa Idris waa amaanay. athna Allahu azza wa jalla ala Idris calayhi salaam wa wasafahu bin nubuwwati was siddiqah wa raf'i makanatihi. faqala subhanahu wa ta'ala wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya ورفعناه مكانا عليا. إلهي سبحانه قادر كاها وأماني نبي الله إدريس، وحاوكو أماني إنو نبي أها أيو كسفيي، وحاوكو أماني إنو صديق أها. صديق وحاوية وارنشيغها أن مرنا بأكتي سواح بين أولين ووحاوية مر والبا رن لوغو إمانيو. وحاوكو أماني inuu marka sidiiq ahaa run sheegaya. wuxuu kala uu ilaahay uu cadeeyay oo waxa weeye inuu kor u qaaday oo waxa weeye manziladiisa iyo wanaagiisa iyo makaanadiisa ilaahay inuu kor u qaaday. warafacnaahu makaanan caliya, boos aad u sarreeyay in la geeyey ayuu ilaahay sheegay. marka dib bay inooga imaanaysaa qaybta dambe waxa loola jeeda warafacnaahu makaanan caliya. laakiin waxaynu horta halkaa ka qaadanaynaa inuu nebi ahaa oo waxa weeye nebiyada uu ka mid ahaa nabiyullaahi idriis. laanno ilaahay waxa uu yidhi innahu kaana siddiiqan nebiya. waxa uu ahaa sidiiq runsheego ah oo aan been agtiisa oolin, nebina ah oo ilaahay uu nebi ka dhigay oo min al ambiyaa inuu ahaa. awalan marka tacriiftiisa ayaynu keenaynaa calayhi salaam. قال ابن كثير رحمه الله وحاوليه وحالو يقانا او مثلا اهل الكتاب كي وحاو يقينين اخنوخ وهو ادريس عليه السلام. marka idris ayaa la yiraahdaa oo ilaahay ku magacaabay. aabihii waxa la oran jiray baa la yiri yarada ibn mahlal ayaa la oran jiray baa la yiri ibn qaynan ibn anusha ibn shita. shitna waxa dhalay baa la yiri آدم عليه السلام. وحوليه مركب ابن كثير رحمه الله مجي عيسى ونوع إدريس بأسجل الإرادة. أبيهنا وحل الإرادة يارد أووجيسنا مهل الإيل أيا الإرادة. أووجيس كان وحل الإرادة قينان. أووج كحجنا وأنوشا. أنوش كمركا أووجيس كلا وكحجة مركا أيا وحو يا الشيت. shiitna marka waxaa la yidhi nabiyullaahi aadam wiilashiisii ayuu ka mid ahaa. marka idriis calayhi salaam
wax dhaf laba oo wax badan kama socdo aadam calayhi salaam leanno gebigiisaba waxa u dhexeeya aabihii iyo awowgiisa koowaad oo qiinaan oo kan labaada anuush oo kan saddexaada iyo waxa weeye shiith oo u dhalay marka awowga afraad buuba u noqonayaa aadam calayhi salaam oo waxa weeye aad iyo aadba ugama foga ayay leeyihiin culummadu وقال ابن كثير في قصة آدم في آخر قصة آدم عليه السلام وحو كيري فلما مات آدم عليه السلام مركي النبي الله آدم أودنتي قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه السلام ولفتي سائلي العلماء شيث وحوها نبي بوها وإلهي بأوحي ينشري والنبي نما أيها معركة الغشاقي مركي شيث عليه السلام ayaa mas-uuliyaddii odaga qaaday baa layidhi oo waxa weeye la wareegay mas-uuliyaddii odaga marka carruurtii uguma uu waaweynayn oo leanna waxa weeye qaabiil baa ka weynaa oo waxaynu soo sheegnay qisatu aadam calayhi salaam marka aynu aakhirkeeda ka hadlaynay inuu ilmihii nebiyullaahi aadam uu ugu weynaa qaabiil marka waxa weeye shiith calayhi salaam waxaa leeyahay nebi buu ahaa isaga laftigiisu ilaahay baa u waxyoon jiray marka waxa weeye mas-uuliyaddii odaga oo waxa weeye abuna aadam calayhi salaam waxaa la wareegay bay leeyihiin culammadu shiith calayhi salaam falama jaءat wafaatuhu markay geeridii u timid oo waxa weeye uu shiithna uu dhimanayey ayuu awsaa ilaa ibnihi anuusha wuxuu u dardaarmay bay yidhaahdeen mas-uuliyaddii iyo waxa weeye inuu mas-uuliyaddii qaado wiilkiisii la odhan jiray anuush wiilka ayuu u dardaarmay baa la yidhi oo uu dhalay oo waxa weeye waa ninka awowga labaad u noqonaya awowga saddexaad u noqonaya ee idriis calayhi salaam faqaama bilamri arrintii ayuu u istaagay oo waxa weeye markaas isaguna la wareegay oo waxa weeye aabbihii kala wareegay iyo cidda mas-uuliyaddeedii iyo hoggaankii iyo masiirkii reerka iyo dadkii awlaaddii markaa joogtay oo nabiyullaahi aadam oo waxa weeye awlaad badan ahayd ayuu markaa la wareegay bali uma bacdahu markaa kabacdi markii uu dhimanayey ayuu isaguna waxaa kala wareegay baa la yidhi mas-uuliyaddii qiinaana oo waa awowga labaad oo waxa weeye idriis calayhi salaam uma markaa kabacdi ayaa waxaa isagana kala sii wareegay baa la yidhi wiilkiisii oo ninka la yidhaahdo weeye ku magacaaban mahlal-iil wahuwa aladii yazcumu buu yidhi ibnu kathiir acaajimta nimanka la yidhaahdo furuska iyo waxay leeyihiin wuxuu ahaa nin boqora oo waxa weeye aad iyo aad adduunkao dhan u hantay ayuu ahaa baa la yidhi ninkaas la yidhaahdo mahlal-iil meel walba ayuu tegey baa la yidhi oo nin aad iyo aad cajiib u ahaa baa la yidhi waxay leeyihiin waa ninkii ugu horreeyey oo geedaha in la gooyo bilaabay dhisayna almadaa'ina waalxusuuna alkibaar dhufaysyada iyo meelaha la galo oo waaweyna ninkii bilaabay weeye bay yidhaahdeen ninkaa la yidhahdo mahlal-iil waxay kaloo yidhaahdeen waa ninkii bilaabay magaalada la yidhaahdo baabil iyo midda la yidhaahdo afsuus alaqsa magaalooyinkaa ninkii bilaabay weeye ayay leeyihiin mahlal-iilku marka waa awowgii nebiyullaahi idriis calayhi salaam ayay taariikhda ku keenayaan wuxuu yidhi marka ibnu kathiir waxay yidhaahdeen waa ninkii ibliis iyo shayaadiinta ayuu aad ula dagaalamay baa la yidhi oo ka cayriyey oo waxa weeye dhulkao dhan ka cayriyey ilaa uu buuraha saaray oo bini-aadmigii ka dhex saaray ayay leeyihiin taaj weyn ayuu lahaabay dhaheen oo waxa weeye taajka waxa la yaha baalkan boqorrada iyo ay qaataan oo waxa weeye ay madaxa saarsadaan oo tusaya maaragtay boqortooyada waxay leeyihin markaa ibnu kathiir waxa uu leeyahay wuxuu ahaa nin dadka u khudbeeya oo aad iyo aad codkar u ah ninkaa la yidhahdo mahlal-iil falamaa maata markii uu dhintay marka oo uu dhimanayey ayaa markaa arrintii waxaa kala wareegay waladahu yaarad waa nebiyullaahi idriis aabihii ayuu maaragtay ibnu kathiir leeyahay waxaa la wareegay marka ninkaa la yidhaahdo yaarad ayaa arrintii la wareegay oo waxay soo gaadhay silsiladiisay usoo socotay idriis aabihii ayay soo gaartay calayhi salaam falamaa xadarathu lwafaat markii aabbihiina ay soo xaadirtay geeridii
awsaa ayuu dardaarmay marka oo wuxuu u dardaarmay marka ibnahu oo waxa weeye waa idriis calayhi salaam ayuu u dardaarmay laakiin iyagu ahlu taariikhu waxay ku magacaabaan akhnuukha laakiin magaciisa rasmiga waa idriis oo luqadda carabiga ilaahay baa ku magacaabay sida mashhuurka waa nooca marka nabiyullaahi idriis calayhi salaam saas ayay silsiladu usoo socotay ayuu leeyahay ibnu kathiir oo waxa weeye usoo sharaxayaa oo usoo kala saarayaa inuu waxa weeye shiit uu kala wareegay aadam arrintii kabacdi markaa wiilkiisii baa kala wareegay kabacdi waa soo socotay ilaa mahlal iil ay u timid mahlal iilna waxaa kala wareegay yaarad oo waxa weeye ah idriis aabihiina waxaa kala wareegay idriis calayhi salaam oo mas-uuliyaddii iyo waxa weeye odaynimadii iyo boqortooyadii la wareegay oo markaa nebi ilaahayna ahaa oo ilaahay u waxyoon jiray wuxuu leeyahy ibnu kathiir raximahullah ilaahay aad buu u ammaanay nebiyullaahi idriis wuxuu ku magacaabay inuu nebi yahay inuu run sheego ahaa wa huwa akhnuukha buu yidhi waana isaga weeye waxa uuna tegayaa bay dhaheen wuxuu leeyahy ibnu kathiir wa huwa fii cumuudi nasabi rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam calaa maa dakarahu gayru waaxidin min alculamaa culamo badan ayaa waxay sheegeen siduu nebigu u socday calayhi salaatu wasalaam abtiriskiisa markii la tiriyey inay geliyeen nebiyullaahi idriis calayhi salaam nebi maxamed baa laga hadlaya nebi maxamed abtiriskiisa sida loo wada bay dhaheen oo uu sii socdo markuu nebiyullaahi ibraahim dhaafo nebiyullaahi nuux dhaafo nebiyullaahi idriis ayuu tegayaa bay dhaheen kabacdina shiit buu tegayaa shiitna hadde nebi aadam baa dhalay calayhi salaam marka ilaa intaasay gaarsiiyeen nebiga abtiriskiisa oo waxa weeye saasay culammada qaar u sharaxeen laakiin intaasoo dhan waxay u baahan tahay daliil oo waxa weeye waa taariikhe wax daliila oo waxa weeye saxiixa oo waxa weeye inuu maaragtay arrintu ay saa tahay ku sugnaaday lama hayo wey waxay yidhaahdeen wa kaana awala bani aadam ucdiya annubuwata bacda aadam wa shiith calayhim assalaam waxaa la leeyahay oo ibnu kathiir uu soo guurinayaa waxaa la yidhi waa nebigii ugu horreeyey oo nebi aadam iyo shiith ka bacdi bilo-aadmiga qofkii ugu horreeyey oo ilaahay u waxyoodoo nebinimo na siiyey ayuu ahaabay dhaheen nebiyullaahi idriis calayhi salaam leanna waxa weeye nebi aadam waa macruuf oo nebi buu ahaa oo ilaahay baa u waxyooday la hadlay nebi idriis ninka la yidhaahdo shiithna calayhi salaam isagana nebi buu ahaa baa la yidhi oo ilaahay baa u waxyooday laakiin lama soo guurin kitaabka iyo sunnahana kuma sugnaanin laakiin ahlu taariikh ayaa waxay leeyihiin wuxuu ahaa nebi marka laakiin waxaa la leeyahay nebiyullaahi idriis inta lagu hayo kutubka qur-aanka ama waxa weeye sunnaha nebiyullaahi idriis ayaa nebiyadii ugu horreeya markaa kabacdi aadam iyo shiith isaga ayaa kusoo xiga oo nebiyullaahi nuux uu ka horreeya laakiin nebinimadiibuu ugu horreeyaaye rasuul markay noqoto la diray oo dadka loo diray waxa ugu horreeya ninka la nebiyullaahi nuux calayhi salaam sida inoo imaan doonto marka nebi iyo rasuulna way kala duwan yihiin oo waxa weeye culummadu waxay yidhahdaan kullu rasuulin nebiyun walaysa kullu nebiyin rasuula macnaha nebi kasta ee rasuul kasta oo ilaahay uu risaalo siiyey oo dacwo u diray rasuulna waa yahay nebina waa yahay leanno nebinimadu waxa weeye ay waa qofkii loo waxyoodo wey rasuulkana waa ninka loo diro dacwo iyo dad inuu gaarsiiyo iyo jihaad iyo waxa weeye inuu maaragtay tabliiqu dacwa laakiin waxyigu waa ka duwan yahay oo waxaa dhici karta inta loo waxyoodo inaan markaa rasuul laga dhigin waxay yidhahdeen marka oo culummadu ay keenayaan inuu ahaa nebigii ugu horreeyey oo bacda aadam iyo shiith ka bacdi inuu isagu ugu horreeyey wadakara ibnu isxaaq annahu awalu man khada bilqalam qofkii ugu horreeyey oo qalam wax ku qoray ayuu ahaa baa la yidhi waxay kaloo leeyihiin waqad adraka min xayaati aadam 308 siniin waxay kaloo leeyihiin oo ibnu kathiir uu keenayaa sida uu ibnu isxaaq uu keenay waxay leeyihiin wuxuu soo gaaray xayaatadii iyo noloshii nebiyullaahi aadam calayhi salaam leanna waxaynu nidhi markaynu qisatu aadam aakhirkeeda ka hadlaynay waxay ahlu taariikhu sheegeen
in nebiyullaahi aadam markii uu dhimanayey uu durriyadiisii iyo intay sii dhaleen iyo awlaaddii uu awowga u ahaa iyo waxay sii dhaleen ilaa 400,000 oo qof inuu arkay. marka cimriguna waa dheeraa oo dadka cimri dheer bay noolaanayeen 1000 sanana waa noolaa. marka waxaa dhici karta inuu soo gaaray waa wax suurtagal ah, laakiin wax daliila oo xadiid iyo aayad aan ku qadcinno oon dhahno wuu soo gaaray ma hayno. laakiin waxa weeye waa kalaam culumo, haddii uu sax noqdo sawaab noqdona haddii ilaahay baa garanaya, haddii uu waxa weeye khalad yahayna ilaahay baa garanaya. wax caqiidaa iyo wax wax maaragtay axkaama oo aynu ka qaadanaynana ma jirto weeye. leanna waxa weeye wax inooga sugan oo inooga xiran ma jirto xilligii uu maaragtay hadduu soo gaaray nebiyullaahi aadam iyo hadduuna soo gaarin midna waxa weeye kama sugnaanayso wax xukum sharciya. wuxuu yidhi waqad qaala daa'ifatu min annaas, culummada qaar ka mida waxa ay yidhaahdeen ayuu ibnu kathiir leeyahay inahu idriis calayhi salaam waxa weeye almushaaru ilayhi fi xadiidi mucaawiyata bni xakam asulami. xadiid baa jira mucaawiyata bni xakam asulami uu nebiga la weydiiyey oo can ilkhadi biramli ayaa la weydiiyey, waa faalka markii dhulka wax lagu qorqorayo oo laga faalfaalinayo ayaa la weydiiyey nebiga calayhi salaatu wassalaam. markaasuu nebigu waxa uu yidhi innahu kaana nebiyun yakhudu bihi, waxaa jiray nebi dhulka wax ku xariiqi jiray oo markaa halkaa ka ogaan jiray waxyiga oo waxa weeye ilaahay mucjiso uga dhigay ayaa jiray buu yidhi. faman waafaqa khatuhu fadaaka, qofkii ay maaragtay marka waxaan uu faalinayo qofkii ay waafaqdo nebigaa sidii uu samayn jiray, hadda markaa waxa weeye waa taasuu leeyahay oo waa suurtagal inay wixii sax noqdaan. hadda laakiin marka xadiidku waa xadiis saxiixa oo imaamu muslim baa wariyey, laakiin waxaan marna suurtagal ahayn qof maanta jooga oo khuraafaad samaynaya inuu waafaqo nebi idriis calayhi salaam matalan haddii ilaahay mucjiso u siiyey ma waafaqi karo. leanna waxa weeye dhulka oo la xariiqo qof wax ku ogaan kara ma jiro ilaa waxyi min allah mooye. marka nebi idriis waa loo waxyoonayey ee isagu min cindi nafsihi kama uu ogaanaynin. marka waxay leeyihiin culummadu nebiga loo jeedo oo nebigu uu leey nebi maxamed calayhi salatu salaam uu yidhi innahu kaana nabiyun yakhudu bihi, waa nebi idriis baa loo jeedaa. oo ahlu taariikhu waxay leeyihiin nebi idriis ayaa arrintaas mucjiso u ahayd oo waxa weeye ilaahay uu siiyey oo noocaa samayn jiray. markii wax la weydiiyo ama arrin uu samaynayo dhulkuu xarxariiqi jiray, dee hab ilaahay u baray, markaasuu ogaan jiray wax alla wixii maaragtay markaas halkaa waxyi min allah ilaahay maaragtay tusi jiray oo markaa waxa weeye saas uu u ogaan jiray ayay leeyihiin maaragtay culummadu. waxa uu yidhi marka ibnu kathiir raximahullah wayazcamu kathiiru min culamaa'i atafsiiri waalaxkaam annahu awalu man takallama fi dalika. waxay leeyihiin buu yidhi culummadu zacama kelimadda la yidhaahdo luuqadda carabiga marna waxaa loo isticmaalaa waxay sheegeen ee ma aha inay mar walba tahay been, laakiin asalkeedu luuqadda carabiga waxaa lagu yidhaahdaa qofku markuu iska sheegto wax uuna garanaynin oo uuna daliil u haysan oo uu ku been hawaasayo ayaa la yidhaha hebel wuu iska sheegtay waxaa ee wax saxa ma aha. laakiin marka loola jeedo kalaamka culummada zacama waxaa laga wadaa ee waxay sheegeen oo yidhaahdeen culummada qayb ka mid ah tafaasiirta culummada tafsiirka iyo axkaamta fiqiga ahlu fiqigu waxay yidhaahdeen qofkii ugu horreeyey oo waxa weeye waxaa faalka ah sameeyey wuxuu ahaa nebiyullaahi idriis oo isaga ayaa laga soo gaaray. laakiin waxyi min allahi bay ahayde ma ahayn waxaan hadda ay khuraafaadka ku sameeyaan oo aleelaha ay ridayaan ama mid intuu dhul xarxariiqo oo ciyaar suuqa odhanaya oo caasiya ilaahay baa caasiya iyo odhanaya cilmi geyb baan sheegayaa, wax ka jira ma jiraan, mana waafaqayso oo waxa weeye ma waafaqayso nebiyullaahi idriis haddii noocaa la siiyey. leanna waxyi min allahi bay ahayd isaga wixii la siiyey oo nebi ilaahay buu ahaa, ilaahay baa tusayey una waxyoonayay. wuxuu yidhi ibnu kathiir marka raximahullah wayusamuunahu waxay ku magacaabaan
ay macnaha ahlu taariikhii hore oo ahlu kitaabkii iyo nimankii maaragtay yahuud iyo dadkii taariikhda soo qori jiray waxay ku magacaabaan baa la yidhi hirmisa alharamisa magaciisa noocaasa u yiqiineen baa la yidhi luuqadda carabigana macnaheedu waxa weeye asud asad waa ninkii libaaxa ahaa ee macnaha boqorkii maaragtay ninkii boqorka ahaa oo waxa weeye geesiga ahaa oo libaaxyada ayay ku magacaabayaan marka macnaheedu waxa weeye waxay ku ammaanayaan nin aad iyo aad cajiib ah inuu ahaa ayay maaragtay halkaas kaga hadlayaan wey wuxuu yidhi marka ibnu katiir raximahullah wayakdibuuna calayhi ashyaa arrimo badan oo aad iyo aad u badan ayay ugu been abuurteen oo nabiyullaahi idriis waa lagu been abuurtay buu yidhi waxyaalo uunan shaqo ku lahayn ayay ku sheegeen oo waxa weeye sida maaragtay waxyaalo cajiiba marka waxyaalihii wax ka mid a halkaan ma uu keenin ibnu katiir laakiin wuxuu yidhi waxyaalo badan oo been abuurashaa oo fara badan ayay nabiyullaahi idriis u tiiriyaan oo waxa weeye aan wax asal lahayn oo been iyo kediba siday nebi maxamedba iyo nebiyadoo kaleba ugu been abuurteen iyo dadkii culummada ahaa iyo awliyadoo dhan bay ugu been abuuranayaan ayay marka taana sameeyeen buu yidhi oo waxa weeye mashaakil badan ayay maaragtay u geysteen haddaba halkaa waxaynu ka ogaanay qodobka ugu horreeya nebiyullaahi idriis calayhi salaam magiciisa iyo waxa weeye inuu maaragtay galo nabiyullaahi shiit calayhi salaam kabacdi markaa uu shiitna waxaa dhalay baynu niri nabiyullaahi aadam ayaa dhalay sidaa marka ayayna horta qodobkaa ka ogaanay waxaynu kaloo ka ogaanay inuu ahaa ninkii ugu horreeyey oo waxa weeye ilaahay uu nebi ka dhigay bacda nabiyullaahi aadam iyo shiit calayhim assalaam kabacdi markaa nabiyullaahi idriis ayaa ugu horreeyey nebinimadii oo waxa weeye bilo-aamniga nebinimada ninka ayaa ugu horreeyey ayaynu nihi waxaynu marka usoo gudbaynaa haddaynu ogaanay inuu nebi ahaa qisadiisu aad bay u gaaban tahay oo waxa weeye ma badna marka waxaynu usoo gudbaynaa haddaynu ogaanay inuu nebi ahaa calayhi salaam oo ay caddaatay oo waxa weeye ilaahay uu caddeeyey inuu nebi ahaa marka waxaynu usoo gudbaynaa oo magaciisii yaaynu garannay qowluhu tacaala marka wa rafacnaahu makaanan caliya maxaa laga wadaa waa qodobka labaad oo waxa weeye qisatu idriis calayhi salaam marka maxaa laga wadaa wa rafacnaahu makaanan caliya ayaynu marka usoo gudbaynaa oo aynu ka hadlaynaa marka wuxuu yidhi ibnu katiir raximahullah waxaa laga wariyey buu yidhi qowluhu tacaala wa rafacnaahu makaanan caliya wuxuu ibnu jariir wariyey buu yidhi oo ibnu jariir atabari raximahullah imaamu lmufasiriin oo waxa weye ninkii imaamkii mufasiriinta ahaa oo tafsiirka o dhan waxa weeye aad iyo aad looga dambeeyey wey ibnu jariir atabari raximahullah waxa uu leeyahay marka waxa uu wariyey buu yidhi ibnu jariir atabari can hilaal ibnu yasaaf waxa uu ka wariyey qaala wuxuu yidhi qaala cabdullahi ibnu cabbaas radia allahu sa'ala ibnu cabbaas cabdullahi ibnu cabbaas baa waxa uu weydiiyey ninkii la odhan jiray wa ana xaadirun aniga oo la jooga ayuu wuxuu weydiiyey buu yidhi ninka la yidhaahdo kacab ayuu weydiiyey buu yidhi marka sa'ala ibnu cabbaas kacaban wa ana xaadirun buu yidhi aniga oo la jooga oo la fadhiya ayuu weydiiyey buu yidhi ninka la yidhaahdo cabdullahi ibnu cabbaas ayaa kacab weydiiyey buu yidhi kacabna hadda wuxuu ahaa raggii kutubihii hore oo kutubtii maaragtay tawraat iyo kulli si fiican wax uga yaqiinay ayuu ahaa oo aad iyo aad cilmi u leh oo nin caalima ayuu ahaa waxa uu yidhi markaa markuu weydiiyey oo wuxuu weydiiyey qowluhu tacaala waxa uu ku yidhi faqaala lahu wuxuu ku yidhi ma qowlu llahi tacaala liidriis wa rafacnaahu makaanan caliya macnaheedu muxuu yahay macnaha laga wado oo waxa weeye ilaahay maadaama uu yidhi wa rafacnaahu makaanan caliya maxaa laga wadaa buu yidhi waxa uu yidhi markaa kacab baa hadlo oo waxa uu ku yidhi waxaa laga wadaa buu yidhi amaa idriis fa ina allaha awxaa ilayhi nebiyullaahi idriis ilaahay baa u waxyooday
النبي بو أها إلهي بوحي وحيود وحويري إني أرفع لك وحا أن معرتي كركو قاضيا مالين والبا ضدك بلوآنيغا وجوغو أردن وحا أي عمل صنيان أيان مالين والبا كركو قاضيا لعله مركا وحا لوجيدا من أهل زمانه أيو يري ضدكي وقتي ساجوغي أيان لوجيدا أبو يري وحو يري markaas wuxuu sii jeclaystay nabiyullaahi idriis inuu camal kale inta sii sameeyo oo camalka uu badiyo in kor loo sii qaado oo waxa weeye aad iyo aad maartay manzilo caaliya uu gaaro ayuu jeclaystay waxa uu yimid buu yiri khaliilun lahu min almalaa'ika malaa'ikta nin malak kamida oo uu iimaan jiray oo waxa weeye saaxiib laaha oo waxa weeye uu iimaan jiray ayaa u yimid faqala wuxuu yiri إن الله أوحى إلي كذا وكذا إلهي بأي وحيودي أو ساء يساسا لي وحيودي إن معلوم الباكور لأي قاضي عمل كيغا ووحاوي بالآن عمل كاي سميان وطن وكلام معلوم بإن كور لأي قاضي ووحاوي الدرجة سرع إلهي إقارسين ملك موت كالله هذا البوير مركا بل وقت جيجي إن دبلا إيسي ديغو ووحاوي أن عمل كسيبا ديو فحمله بين جناحيه waxa uu ku soo qaaday marka malagii baa soo qaaday buu leeyahay oo waxa weeye korbu u qaaday oo waxa weeye garabkiis intuu soo saaray garbihiisi ayuu samada la aaday thumma sa'ida bihi ila as-samaa samadu la kora falamma kana fi as-samaa'i ar-rabi'a samada afraad markuu malagii la marayay oo nabiyullaahi idriis uu sido ayaa talaqaahu waxa la kulmay buu yiri malakul mawt munhadiran malakul mawt ki oo soo degaya oo u soo socda nabiyullaahi idriis inuu nafta ka qabto ayaa samada afraad kula kulmay buu yiri fakallama wallahi hadlay markaa waxa uu ku yiri nabiyullaahi idriis ayaa saa yiri waxaan doonaynaa markaa in waqti loogu sii daro oo waxa weeye markaa uu camalka sii badiyo markaas wuxuu ku yiri wa ayna huwa أين إدريس حجيب الجوجا مركاسه وحو كوي هو ذا على ظهري واكم بيقور كي صارا فقال ملك الموت يا للعجب أرن عجيب بوي بعثت ولا يصدر بي إلهي يصدر وقيل لي وحا ليويري اقبض روح إدريس في السماء الرابعة سماء أفراد نبي الله إدريس نفتك يقبو وهل كان نفتك يقبو ليويري بوي waxaan isdhaayay buu yiri marka see samada afraad aan nafta uga qabtaa isagoo dhulka jooga faqabada ruuxahu hunaka fadaka qawlu llahi ta'ala wa rafa'nahu makanan 'aliyya macnaheedu waa noocaas buu yiri marka kacab waxa uu ku fasiraya waxa uu leeyahay ibn jarir ayaa wariyay oo waxa uu soo guurinaya ibn kathirna uu ka soo naqliyay wuxuu leeyahay marka قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا معناه ذو وحويه ونوعا ووحا لقوضا إن أمارة النبي الله إدريس إلهي وصمد أفراد جيي نفتنا وكاقفتي سيدو كلا أبو بكر الجزائري وحوليه في السماء الرابعة إلى السماء الرابعة أيا لوكر يلي وهلكا أيا لقيي أيو ليه marka mufassiriintu waxay u badan yihiin warafacna makanan 'aliya ila as-samaa'i ar-rabi'a inay tahay oo samada afraad in la geeyay waxaana inoogu imaanaysa inuu samada afraad joogo oo cadeynaysa xadiidkii maaragtay xadiidkii cadeynayay oo waxa weeye al-israa wal mi'raaj ayaa maaragtay inoo cadeynaya inuu maaragtay halka la geeyay sidoo kale ibn jarir waxa uu leeyahay mujaahid iyo waxa laga warinaya inay dhahayaan warafacnahu makanan 'aliya idris rufi'a wa lam yamut kama rufi'a isa waxay culimada marka qaar ku fasirayaan ay leeyihiin nabiyullaahi idris alayhi salaam korba loo qaaday ma dhimanin oo waxa weeye sidii nabiyullaahi isa kor loogu qaaday ayaa kor loo qaaday isaga marka ibn kathir waxa uu leeyahay halka marka uu tacliiqinayo hadii muraadka uu yahay ma dhimanin ilaa iyo hadda arinta wax suurtagal ma laakiin waxa dhici karta macnuhu inuu iswaafaqayo markii la yiraahdo rufi'a hayyan
إلى السماء الرابعة ثم قبض هناك أرنتها مركا أقواشي علماء مركا وإسوافقيان مركي سال وفسره مرجع على كل حال آثارتاس أيها كسبناتي أو صحابة أي ساء فسرين لكن وحوية آيات كسبناتي إيا حديث كسبناتي من مجره مركا وحوية معناهاس أي علماء كفسرين أيها ماركتي وغرى جحسن وإن كرلو قاضي كبعدنا وحقا السمدى إلهي ونفتك يقبطي أما قوله ورفعناه مكانا عليا وين شرحني لكن معناها ماركتي إنه كان صديقا نبيا صديقا معناه هذا مركا يفسر يعني علماء وقفك وحي هذين أي كثير الصدق مبالغا فيه حتى إنه لم يجوز على لسانه كذب قط ولي بين مشيقين بالي أي معناها صديقا ومبالغة وحوي مركي قفك آد لولي يعني معناها ولي بين مشيقين قولنا كما بين شيقين عملنا كما بين شيقين لأنه وحوها النبي وحوي من أنبياء الله أيها معركتي علماء ليه مركا الساعة يا لقوضة قوله تعالى معركتي وكان صديقا نبيا marka halka waxa inoo gacadaatay nabiyullaahi idriis alayhi salaam in ilaahay uu kor u qaaday makaan sarana uu geeyay samada afraadna la geeyay ayaa halka inoo gacadaatay sida axaadiista inoo keeni doonto inoo cadeyn doonta inuu samada afraad joogana waa inoo cadaanaysaa waxaynu keenaynaa marka qodobka ku xiga oo saddexaad waxa weeye makaanu idriis alayhi salaam fi samaa booskeebu ka joogaa samada nabiyullaahi idriis laana waxaynu niri nebiyadii oo dhan ambiyadii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiye badan buu sheegay oo samada uu kula kulmay habeenkii al-israa wal-micraaj xadiidkii anas radiyallahu canhu waxa uu yidhi nebigu waxa uu yidhi ثم سعد بي حتى أتى السماء الرابعة جبريل أيا إلى كريب يري السماء إلى أي وحوي السماء أفراد آن تغمي مركاسو ضلبي إن لفره مركاسا وحا لوير واقوما مركاسا وحو يري جبريل مركاسا ليري يا كل الصعدة مركاسو يري محمد مركاسا ليري ميا لو عدري مركاسو يري ها كبعد مركا أيه وحكو هذا مرحبا به فنعم المجيء جاء سودو باليري نعمة أيا ديارته وحوي وحا نعمة بدناضي كان يمد وحوي ما أنت يمد أيا نعمة بدنوي فلما خلصت فإذا إدريس مركان قالي مركا أو صمدي أفراد عن تغني مثل إدريس بابا شوقبه قال وحوير يا جبريل هذا إدريس عليه السلام فسلم عليه السلام فسلمت عليه وان سلامي فرد ويسوع عليه وان سلامي سونا وحوير مرحبا ثم قال وحوير مركو سلامي كبعدي مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح سودو نبي صالحة ولالك صالحة سودو ويري وحوي النبي ذو الإنساس يكودايين أو سودوينيين إمام البخاري أيها وري حديثك الصدح كون يا معركتي لو بقولي صدوا رقمية بدن بكوريي صدح كون يسديد بقول سديتين صدوا وكوريي صدح كون عفر بقولي صدوا وكوريي صدح كون صدح بقول سراشين صدح وكوريي رقمية عادو بدن بكوري وحوي فتح الباري كيليس مسلم نواوري بقولي لحدن يعفر إمام الترمذي واوري النسائي واوري أحمد واوري وحديث صحيحة مركا وحوي الصغوي وفي رواية كالوحيد وأنس بن مالك رضي الله عنه لقوري نبي بيقولوا يرمركي عن قليب السماء الرابعة أتيت على إدريس في السماء الرابعة وحان إدريس أقو إمد سماء أفراد أيان إدريس كو أركي وأن أوتغي أيوه إمام البخاري مسلم الترمذي أيها وريه واحد الصحيح هل كان مكا واحد وقع ذاتي نبي الله إدريس عليه السلام إن أو بوس كيسا إيا مكانك أو جوغو ووحوي النبي أو كلا كل مي إني تاي السماء الرابعة سماء أفراد إني تاي أيها هل كان وقع ذاتي مكا
marka halkaa marka waxaynu ka faa'iideynaa makaanka iyo booska uu leeyahay oo waxa weeye nabiyullahi idriis uu joogo inay tahay samada afraad waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka ugu dambeeya oo waxa weeye qisatu idriis aad bay u gaaban tahay oo waxa weeye qisadiisu ma dheera weeye ذكر الخلاف في زمان إدريس عليه السلام علماء waxay isku khilaafsan yihiin oo khilaaf baa ku soo arooray waqtiga uu nabiyullahi idriis zamankeebu ahaa oo waqtigu ahaa waataynu niri waxa maaragtay nabiyullahi nuux uu ka horeeyay marka ma ka dambeeyay nabiyullahi nuux mise waa ka horeeyay ayaa khilaaf ku jira laakiin qowlka raajixa waxa weeye inuu ka horeeyay nabiyullahi idriis inuu nabiyullahi nuux ka horeeyay bal ay culimadu leeyihiin nabiyullahi nuux laftigiisa ayaa gala oo waxa weeye uu awoowo u noqonayaa nabiyullahi idriis calayhi salaam waxa uu yidhi ibn kathir raximahullah waqad zacama bacduhum zacama awal baynu soo sheegnay ay macnaha waxay sheegeen weeye qaarkood anna idriis calayhi salaam nabiyullahi idriis lam yakun qabla nuux nuux kama uu horreynin bal kaana fi zamaani bani israa'iil qaar baa waxay yidhaahdeen waxa uu ahaa waqtigii maaragtay reer bani israa'iil oo nebiyullaahi idriis ma ahayn kama horreynin nebiyullaahi nuux imaam albukhaari waxa uu werinayaa qaala albukhaariyu maaragtay imaam albukhaari waxa uu werinayaa inuu yidhi wayudkaru ay macnaha waa bisiiqati tamriid weeye waa daciif weeye hadduu imaamu albukhaari uu yidhaahdo wayudkaru waxaa laga sheegay macnaha xadiis saxiixa oo sanadkiisu sax yahay ma aha athar saxiixana ma aha cabdullaahi ibni mascuud iyo cabdullahi ibni cabbaas baa waxaa laga sheegay buu yidhi in uu anna ilyaas huwa idriis wa ina ilyaasa la min almursaliin fi suurati wasaafaat ayuu waxa uu leeyahay waxaa laga sheegay cabdullaahi ibni cabbaas iyo cabdullahi ibn mascuud inay yidhaahdeen ilyaas iyo idriis waa hal nin wey oo waxa weeye waa isku macne oo waxa weeye wa ina ilyaasa la min almursaliin huwa idriis weeye bay yidhaahdeen calayhi salaam haddaba marka xaafid ibni xajar waxa uu leeyahay raximahullah markuu halkaa tacliiqinayo wuxuu leeyahay amaa qowlu ibni mascuud cabdullaahi ibni mascuud qowlkiisa fa wasalahu waxaa xiriiriyey buu yidhi oo sanad xasana ku keenay ibni abi xaatim iyo waxa weeye ibn xumayd cabd ibni xumayd iyo waxa weeye ibn abi xaatim biisnaadin xasanin canhu maaragtay sanad xasana ayay maaragtay lagaga keenay inuu qowlkaa leeyahay cabdullahi ibni mascuud amaa inuu yidhi macnaha inuu yidhi ilyaas huwa idriis waxa uu qowlkiisu wuxuu ahaa buu yidhi cabdullahi ibni mascuud baa wuxuu yidhi ilyaas huwa idriis wa yacquub huwa israa'iil ayuu yidhi amaa qowlu cabdullahi ibni cabbaas juwaybir nin la yidhaahdo ayaa tafsiirkiisa ku keenay can adaxaaq ka keenay canhu wa isnaaduhu daciif sanadkiisu waa daciif marka cabdullahi ibni cabbaas kama sugna qowlkaasi laakiin cabdullahi ibni mascuud ayaa wuxuu kaga sugan yahay sanad xasana oo waxa weeye aan xoogaa la isku haysto ma daciif ba mise waa saxiix laakiin xasana ayuu maaragtay xasaniyey xaafid ibni xajar raximahullah marka waxaad ka helaysaa qowlkaas xaafid ibni xajar fatxilbaariga majalada 6 373 safxada ah boggaasaad ka helaysaa halkaa marka ayay culummadu isku khilaafsan yihiin oo waxa weeye ay leeyihiin idriis ma wuxuu ahaa ilyaas iyo idriis ma isku hal nebiba mise waa laba nebi marka sida saxiixa waa laba nebi weeye leanna waxa weeye midna ilaahay wuxuu ku magacaabay ilyaas midna wuxuu ku magacaabay idriis marka laba magac weeye oo waxa weeye aan shaqo isku lahayn oo waxa weeye laba nebi oo caadiya wey wuxuu leeyahay marka ibn kathir raximahullah waxay keeneen buu yidhi xadiidkii waxay deliishadeen buu yidhi qolada odhanaysa goordan buu ahaa xadiidkii imaam zuhri oo anas uu ka wariyey oo markuu nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam idriis wuxuu ku yidhi bay dhaheen
مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح waxay ku dhaheen buu yiri marka sababta waxa abu yiri waxay dhaheen haddii uu ka horeeyo nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi ibraahim wuxuu oran lahaa bay dhaheen marhaban bin nabiy salih wal ibn salih sidii nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi aadam ay u yiraadeen nabiga marhaban bin nabiy salih wal ibn salih marka waxay leeyihiin haddii uu yahay awoowayaashii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebigu uu galo oo waxa weeye uu ka horreeyey nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi ibraahim arrintaa ayuu adeegsan lahaa bay dheheen oo waxa weeye aabbu u noqon lahaa laakiin waxa weeye xaqiiqatan waa qowl aan waxa weeye qawi ahayn oo waa qowl waxa weeye aan adilla adag haysan weeye waxa uu leeyahay marka ibn kathir raximahullah وهذا لا يدل على أنه قد لا يكون أرنتاسي waxay kutusimaysa buu yiri inay daliil sax tahay buu laana waxa dhici karta buu yiri inuu raawigi uu iska soo gaabsaday ama uuna xifdiinba waxa kale laga yaabaa buu yiri tawaaduc inuu u yiri oo uu tawaaducay marka tawaaducuna waa wax jira weeye oo qofku waa tawaaduci kara nabiyaduna waa tawaaducan tawaaducana waxa weeye qofku manziladiisii iyo booskii uu lahaa inuu xoogaa iska gaabiyo oo waxa weeye meel ka dabacsan uu tago oo waxa weeye uu isagu hoos isku dhigo ayaa la yiraahdaa tawaaduca marka waxa dhici karta buu yiri inuu tawaaduc arrintan u sameeyay maadaama nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu khayr khalqillah yahay dadka bil'aaniga ugu khayr badan yahay ilaahayna uu khaatim al-anbiya ka dhigay inuu u tawaaducay wiilkiisiiba ha ahaado oo waxa weeye duriyadiisii ha ka mid noqdee laakiin inuu u tawaaducay baa dhici karta oo waxa weeye arrintaa uu tawaaduc u sameeyey ayuu leeyahay ibn kathir raximahullah marka sidaa daraaddeed ma ku tusaysa buu yidhi in ay maaragtay nabiyullaahi idriis arrintaasi daliil ma noqonayso in loo daliishado calaa kulli xaal si kastaa noqotee culummadu waxay u badan yihiin sidaa qowlka aynu hore usoo sheegnay inuu nabiyullaahi idriis calayhi salaam inuu ka horreeyey nabiyullaahi nuux oo nebigii ugu horreeyey oo waxa weeye bacda aadam calayhi salaam iyo shiith nebigii ku xigay inuu ahaa ayay culummadu maaragtay qowlka ibn kathir ayaa loo badan yahay amaa qowlkaas aynu nidhi maaragtay warafacnaahu makaanan caliya dee habkaa uu u fasiray kacab iyo cabdullaahi ibni cabbaas iyo wax kale oo daliila oo khilaafsanna ma hayno wax sugaya oo kalena ma hayno marka waxa weeye saasay culummadu tafsiirka u keenaan oo waxay yidhahdaan warafacnaahu makaanan caliya ee ilaahay baa wuxuu u kor qaaday oo korgeeyey samada afraad marka way sugan tahay baynu nidhi in samada afraad la geeyey oo waxa weeye samada afraad inuu joogo leanno nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam kula kulmay oo samada afraad ayuu maaragtay ku soo dhoweeyey oo ku salaamay oo ay ku wada kulmeen ama maaragtay qowlkan dambe oo odhanaya maaragtay idriis waa ilyas qowlkaasi qowl sugan maaha oo waxa weeye waa qowl aan maaragtay saxiix ahayn qowlka saxiixa ah sidaa ilaahay u sheegay weeye wa ina ilyaasa la min almursaliin waa inoo imaan doontaa qisadiisu ilyas oo qiso gaaraynu kaga sheekayn doonaa idriisna ilaahay wuxuu ku magacaabay maaragtay gaar inuu nebi ahaa sidiiqa marka laba aan shaqo isku lahayn weeye oo kala gaara weeye qisatu idriis calayhi salaam intaa ayay ku eg tahay waa qiso aada u gaaban oo waxa weeye aayaddaa unbuu ilaahay kaga hadlay iyo waxa weeye aathaartaas ku sugnaatay iyo culummada laakiin wax daliila oo kale oo idriis qur-aanka halkaasay kaga soo aroortay intaa unbay maaragtay qisadiisu ku eg tahay waxaynu ka faa'iideynaa marka oo qisadiisa aynu ka faa'iidaysanaynaa inuu nabiyullaahi idriis awalan inuu ahaa min alambiyaa oo nebiyada ilaahay inuu ka mid ahaa kow inuu ilaahay uu waxa weeye ammaanay oo waxa weeye uu ku ammaanay inuu sidiiq ahaa qof run sheega ah oo aan been agtiisa oolin inuu ahaa uu ilaahay ku magacaabay waxaynu kaloo ka faa'iideynaa inuu ilaahay kor u qaaday marka kor qaadidaasi laba noocba waa noqon kartaa in sidii nabiyullaahi ciisa kor loo qaaday
waxa weeye uuba dhibanba iyo in ay sidaa culummadu u badan yihiin in inta kor loo qaaday samada afraad markii la geeyey in naftii laga qabtay oo waxa weeye halkaa uu ku dhintay na waxa weeye waa suurtagal wey oo labadaba culummadu way leeyihiin marka wax aynu ku nafiyenana ma hayno oo aynu ku diidno qowlkaa culummada waxaynu kaloo ka faa'iideynaa nabiyullahi idriis calayhi salaam inuu ka dambeeyey inuu yahay nebigii ugu horreeyey inuuna ka horreeyey nabiyullahi nuux calayhi salaam marka rasuul markii la yidhaahdo nabiyullahi nuux waa rasuulkii ugu horreeyey oo ilaahay soo diray laakiin nabiyullahi idriis calayhi salaam waa nebigii ugu horreeyey oo waxa weeye bacda aadam wa shiith inuu marka nebi ahaa culummada qaar baa dhahaysa laakiin wax daliila oo ku sugnaatay lama hayo ahlu taariikha iyo culummada iyo mufasiriintu waxay leeyihiin nebi buu ahaa oo ilaahay loo waxyoon jiray bacda aadam calayhi salaam ayaa loo waxyooday oo nebi buu ahaa ilmihiisiina da'da uu kaga jiray wax daliila looma hayo oo waxa weeye ma isaga ugu dambeeyey ma ugu yaraa ma dhexdhexaad buu ahaa ma garanayno leanna wax daliila uma hayno wax hadda inooga sugan oo caqiidaah oo waxa weeye aynu ka qaadanaynana ma jirto wey waxaynu marka ka faa'iideynaay oo aynu kaloo ka ogaanay nabiyullahi idriis calayhi salaam inuu nebigu inoo caddeeyey inuu samada afraad kula kulmay oo mansilada halkaa uu joogo oo waxa weeye halkaas uu kala kulmay habeenkii laylatul israa walmicraaj intaa ayaynu marka kusoo gebagabeyneynaa qisatu idriis calayhi salaam oo waxa weeye qisadiisaas gaaban wax alla wixii khalad oo ku jirana ilahay baan uga toobad keenayaa wixii saxana ilahay baan ku maadinayaa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وعلى إنه وحي دونت إن شاء الله قصة نوح عليه السلام